halkan maanta waxaan ku qaadan doonaa fonts aan isticmaalo projects anigu aan khaas ahaan isticmaalo oo aad su'aalo iga soo weydiiseen. marka waxaan idin tusi doonaa ilaa 6 font oo aan aad u isticmaalo. fonts fara badan computerka ugu jiraan, laakiin waxaan doonayaa inaan tuso ilaa 6da ugu badan aan ugu badnaanta isticmaalo ama projects inta ugu badan aan u isticmaalo. magaca channelka daawanaysa Sulf Graphics, fadlan haddii channelka cusub tahay subscribe noo saar, like noo dhiirigeli. haddii aad casharkan ka heshay la wadaag asxaabtaada, wixii faaleed qabtana commentiga hoose inoo qor. marka farta ugu horeysa ee aan doonayay inaan ku sheego waxa weeyaan roboto ayaan ku tusayaa. marka roboto ayaan isticmaalaa. roboto marka haddii aan ku tuso sida ay u egtahay roboto haddii aad halkaa ku qorto, iminka waxay leedahay waa family dhan. marka waxa weeyaan waxay ka kooban tahay iminka thinka haddii aan doorto halkan haddii aan tago 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ka family ka kooban tahay oo kala duwan oo kala weyn duwan ayay ka kooban tahay roboto. marka farteena koobaad oo roboto weyn. farteena labaad waxay noqonaysaa ee aan badanka isticmaalay iyaduna Gotham farayaan. marka Gotham iyada family sidii roboto isugu xidhna, laakiin yara kala daadsan yahay oo farta ka soo dhex dooranaysa. marka waxa weyn isaguna wuxuu ka kooban yahay 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ka family bay iyaduna ka kooban tahay oo iyaguna kala weyn duwan ayay ka kooban tahay. marka fartana Gotham baa la yiraahdaa, tii hore aan soo qaadnay roboto la yiraahdaa. farteena labaad marka farteena saddexaad waxay noqonaysaa marka Bebas oo waxa weeye fartii aan maalintii dhawey ee ama dhiga sameeynayna aan isticmaalay. marka iyadu waa hal family waxa weeyaan oo halkaas kaliya weeyaan, halkaas kaliya ka kooban tahay. halka nooc weeyaan wax fonts kala ku soo jira ma jiraan oo kala weyn duwan, halka regularka oo kaliya weeyaan. marka farteena muxuu ahaayay afraad waxay noqonaysaa Gilroy far la yiraahdo weeyaan. marka Gilroy haddii aan ka qoro Gilroy like haddii aan doorto farta iyaduna weeyaan. marka projectyada qaar baan isticmaalay laakiin badanka ma isticmaalo. marka fonta weyn iyaduna Gilroy weeyaan. waxaan soo qaadan marka roboto, Gotham, Bebas New iyo Gilroy. marka waxay haray fartii tashanaad waxa weeyaan Caution script. waxa weeyaan iyadu waa script weeyaan ama fartan chiefsan sida article oo samaysan weeyaan. Caution haddii halka ku qortay iyada lafteedu halka family oo taas Caution script ayaa la yiraahdaa fartan la yiraahdaa. marka farteena lixaad waxay noqonaysaa waxa weeyaan Pure Serif baa la yiraahdaa. haddii aan farta marka hore select garayso waxaad qoraysaa GA saas oo saaraysaa. iyada lafteedu waa taas laba isweeg weeyaan. taas waa Bauhaus, tan waa Pure Serif. marka Pure Serif taas ayaan anigu doonayay inaan ku tuso. taa weeyaan taan isticmaalay badanka loogadeedana ku hoos jirta qaybta Sulf Graphics ayaa ku qoran. marka taa weeyaan iyaduna. marka 6da font ayaan badanka aad u isticmaalaa. haddaba 6da font 6dan iyaga ana muxuu ahaay idin diyaariyay folder idin ku shubay. muxuu ahaay waxaanad ka helaysaa description-ka ama commentiga u sareeya muuqaalka ayaad kala degaysaa. waxaan doonayay marka inaan ku tuso laba website inaan ku tuso oo faraha kala soo digi karto ayaan doonayay inaan ku tuso. marka hore qoraalka ma koobi leeyahay, kadib waxaan tegayaa marka Chrome-taada wixii kugu jira soo furanaysaa. website-yada aan doonayay inaan ku tuso xawayaan halkan haddii aad timaado Chrome-taada halka waxaad ku qoranaysaa Google Fonts. marka waa kan waa free waana halka ugu ballaaran ee fontska kala soo dego. marka Google Fonts marka timaado ayaa halkan waxaan ku qoranayaa wuxuu leeyahay meel halka tape ay ku qoran tahay ayaa waxaan ku paste garanayaa qoraalkii inuu yaalay Illustrator-ka. markaan paste ku yiraahdo wata halkan iga soo muuqatay waa ta robotada haddii arkayso 12 style hal family 12 style square back updock. marka intii aan iminka ku tusay aniga ku soo diyaariyay oo description-ka ama commentiga aad kala digi kartaa, laakiin waxaan doonayaa inaan ku tuso meel aad fara badan oo kala duwan kala soo digi karto. marka qoraalka aad doonaysay in aad far ku qurux badan aad geliso ayaad soo qaadanaysaa, halkan baad dhiganaysaa custom, halkaas aad ku paste garaynaysaa, kadib hoos baa u soconaysaa fontska halkan aad ka eeganaysaa. marka farta ku qancisa aad leedahay qoraalka aad bay ugu soo baxaysaa, aad bay ugu qurux badan tahay. ayun baad ayar click leedahay, click markaad tiraahdo farta ku dhex geynayaa. marka fartiisaan ku dhex keeno halkan xitaa alphabetic style-keedii ku tusaya ayay u egtahay iyadoo capital iyadoo small calaamadihiiba ku tusaya ayay u egtahay. marka halkaas aad ayar kala degaysaa Dollar Family ay ku qoran tahay ayaad kala degaysaa. website-ka labaad aan doonayay inaan ku tuso waxa weyn isaguna the font ayaad qoraysaa, kadib enter baad leedahay, linkiga u sareeyaad click leedahay. isaga laftiisu waa free, fontska ku jira
isagu category gareysay Google Fonts ka kaga fiican isagu category weyn imka hadii halka ku arkayso category fara badan baa ku yaala halkan category kale ku yaala halkan category kale ku yaala imka kale scriptski waa kuwan calligraphy hadii aan imka doorto hadhow halkan baad gelinaysaa briefigi Cabdifatax Sulba hadii aan imka halka geliyo aan submit iraado wixii soo saari doona fartii oo magacayga ku qoray marka si briefigi markaad gelinayso halkaas aad dooranaysaa hadii aan imka ka masaxo aan geliyo waa kuwan fontiska aan halka ku qoro fontiska geli halkaas aan submit leeyahay marka wixii sameynaya qoraalka aan halka gashay briefigi in faraha aan doortay imka school bay doorane in uu igu tuso fartu noocay tahay imka waa kuwan fontiska waa kuwan marka isaguna waa nooca labada website ayaad kala soo degi kartaa fontiska aad u baahato halkaas aad briefigi gashanaysaa kadib halkaas aad ka eeganaysaa farta kugu quruxda badan aad u baahantay inaad la soo degto ayaad halka kala soo degaysaa qaarna waa gameka Illustrator-keeda ku tusay ilaa 6 bay ahaayeen 6da marka aan idin siinaya folder baan ku soo diyaarinaya link baan hoosta idin soo dhigay mega storage halkaas aad kala degi doontaan casharku halkaas inoogu joogaya fadlan haddii aad ku cusub tahay subscribe noo saar like nagu dhiirigeli wixii faaleed qabto commentiga hoose noogu reeb haddii cashar ka heshay la wadaag asxaabtaada wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh